حلبان هبل وعدي أنا حلبان ناقور عديدنا إن شاء الله سنة كذبة داود يا الميل البيجوك سنة بعدين وده سلام يا سنة أركيسان به وروحات داور إنسان الله سبحانه وريجي كما دبيس كيس دحات دور الشدة مدحونها جمهورية فدرالك الصومالية يسوق صهرين لبا مدحونه وهري صومالي وسوق جامي وحسن الشيخ محمود محمد عبد الله فرماجو هذا بلشرينا مدبو متكله تاجر أي وجنيان ميرو البيضوني ده فينا عالم كيف مسؤولين إن لقوا كلا دون عندنا السياسة ده وحس عادي لكن اللي يسقط جاله وقعد هذا أي ماشي إماتهم ما هو نفسه لبدا المشرح من دويته كله ما وصلوا تنازلين تام عليه ده واحد هاي إنه وده دونيان إنه مجرها ولوسي هيان هو كان كذلك الصومالية معارض محافظ وطن كلامه كلا لها لكن سياسة ده يا اللي يسقط الدنيا هاي سيدا كلنا ولا يسقط ربع dalkeena Soomaaliya dadweyne waxa uu rabaa amaano iyo shaqo abuur oo dhalinyarada loo sameeyaa si dhalinyarada fursado nololeed ay u helaan ayna u joojiyaan tahriibka amni darrada ugu horeysay wadanka ayaa ku qasabtay bulsho badan inay uga soo cararaan wadankooda kuwaas oo dabarsanaya wadamada shisheeyaha ah oo magangaliyada la siiyay haddaba xilliban Allah inoo ka waafajiyay in doorato madaxweyne cadaalad ka shaqeeya oo caadil ah yaqaan adamirna leh dadka kala ridooba isku keeni kara iskuna hayn kara sida baan doonaynaa Soomaaliya daawade marka dhamaanteena baan wada duceysannaa inuu Ilaahay noo dooro mid caadil ah oo danta iyo dalkaba ka wada shaqeeya haddaba daawade Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho meelo badan oo kamid ah waxa hadda ka bilaabdo dabaaldeg natiijo aan wali soo gabagaboobin kuwa oo ay ugu horeeyaan dhalinyarada magaalada ku nool kuwa oo muujinaya inay kala taageersan yihiin labada musharax ee wareegga saddexaad ee tartankan loo kala codeynaya laakiin natiijada dadka reer Muqdisho waxay u badan yihiin kuwa hadda muuqaaladooda soo gaaraya kuwa taageeraya Xasan Sheekh Maxamuud oo horay wadankan u soo hogaamiyay 4 sano haddaba daawade adiga sidee bay kula tahay labadan hogaan midkee baa soo bixi kara madaxweyne kasta ayaa wax qabta waxna ka taga dadka Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay in lisgarabsado oo midnimada iyo dawladnimada laga wada shaqeeyo yaan loo arag mucaaradnimadu inay tahay mid dawladida ah dadweyne meel walba aad ku sugantiin waa miskiintii Kawsar aheed oo halka idinku salaamaysa dhalinyarada leh kaca 13 dhalinyaro ee Soomaaliyeed ee